ururka haweenka jaaliyadda DDS ee magaalada Birmingham shaqooyin fara badan soo qabtay markii ugu horeyso waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha ururka DDS ee magaalada Birmingham Farxiye Cabduqaadir waxaan kale u mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka jaaliyadda DDS ee magaalada Birmingham ayaan xasan aamusane waan u mahadcelinayaa shaqo fara badan ay soo qabatay caawa waxaa go'aan lagu gaaray gudida isku dhex jira gudida fulinta jaaliyadda DDS ee magaalada Birmingham in loo codeeyo waxaan caawa sharaxan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka marka waxa halka inala jooga gudoomiyaha jaaliyadda DDS ee magaalada Birmingham Bile Maxamed Sayid iyo waxa halka inala jooga caawa marti badan oo sharaf uu kamid yahay Sheekh Dayib waxa kale halka inala jooga xiriiriyaha guud ee jaaliyadda DDSI injineer Cabdicasiis oo la ogyahay shaqo fara badan uu jaaliyaddan ka soo qabtay shaqooyinku soo qabtay waxa kamid ahaa markii hore jaaliyadaha wax weeyaan xeer u yaalay iyo wax u yaalmeena jirin injineerka shaqooyinkii fara badanna uu soo qabtay wuxuu kamid yahay waagii hore gacan baa la isku yeertaagi jiray xeer buu sameeyay marka isagoo dadaal badan muujiyay caawana waxa weeyaan wuxuu soo diyaariyay waraaqadihii ay jaaliyadda ay ku codeyn lahaayeen waan u mahadcelinaynaa injineerka هذا عاوه halkan waxaan ku qaybinaynaa waraaqadii waxa loo qaybinayaa shanta gudidii fulinta sifay ugu codeeyaan labada musharax waxaan ku soo dhaweynayaa xiriiriyaha guud injineer Cabdicasiis bismillaahir rahmaanir rahiim caawa halkan waxa isugu yimid golihii dhexe DDSI Birmingham West Midland iyo guddigii fulinta iyo ururka haweenka dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Birmingham jaaliyadda caawa runtii kalfadhiyadan hadda aan sameeyna caawa kalfadhigan hadda caawa aan joogno waa mid aan caadi ahayn way aan isugu wada yeernay si wada jir ah ururka haweenka iyo golihii fulinta ama golihii dhaxaba runtii waa wax lagu farxo marka waxaan idin leeyahay bal horta hore habeen wanaagsan salaan kadib codsigan hadda aanu ma taqaanaa caawa isugu nimid kalfadhigan wuxuu ka yimid ururka haweenka ee dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee jaaliyadda marka iyagoo aad u mahadsan waa sidii horena loo sharaxay in ma taqaanaa macnaha caawa waqtigii muxuu ahaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ay hayeen oo dhamaaday oo sida xeerka dastuurka uu dhigayo jaaliyadda in labadii sanaba in mar la doorto marka caawa weeye doorashadii iyagaana soo gudbiyay waxaana marinaynaa maartay sida xeerka uu yahay ee inoo degsan marka intii horena dawaaba la faahfaahiyay marka sida habka iyo maartay loo codeynayana hadee waxaan soo diyaarinay warqadihii oo guddiga fulinta oo ay ka mid yihiin muxuu ahaa ururka haweenka runtiina ururka haweenka hadaan in yar ku yarat aan muxuu ahaa yara istaago iyaga la'aantood jaaliyadda ma socoteen runtii waa laf dhabarka jaaliyadda runtii aad iyo aad baan ma taqaan ugu mahadcelinaynaa oo waliba hadana caaw waxa farxad aad u weyn ah sida qaybgalka ay ka soo qayb galeen maartay ay noo muujiyeen jaaliyadda yaani wada jirka jaaliyadda oo maartay golaha fulinta ka dhaxeeya marka hadda wixii marka ku dheeraan ma hadalka intaanan hadaladii kale aan u gelin waxa loo baahan yahay marka habkii inaan u sheegno waa la isla wada ogolaaday habka uu dhacay doono doorashada
in markaa de ugaaska aan u yeerno ugaas xasan inuu markaa u qaybiyo warqadihii kadibna markaa aanu maartay natiijadii aanu maartay aan fiirino kadibna markaa natiijada wixii ka soo baxana markaa gudoomiyihii la wada doorto hakada kadib markaas in aan u hambalyeeno gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee jaaliyada West Midland marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii kalena فرحية عبد القادر فرحية عبد القادر أيان آم السنة أيان آم السنة فرحية عبد القادر فرحية عبد القادر فرحية عبد القادر فرحية عبد القادر أيان آم السنة فرحية عبد القادر فرحية عبد القادر فرحية عبد القادر أيان آم السنة فرحية عبد القادر أيان آم السنة فرحية عبد القادر افت انت واحد افت انت ما يسوي تمام كوتر انت عايز ترى كو لبا سدح أفر شن أيان آم السنة يكون سياد كوا كو لبا سدح أفر شن لح تضبط سديد سقال طبعا يكو فرحية عبد القادر ما شاء الله انت الحمد لله waxay noogu dhamaaday waraaqihii aad noo dhiibteen dadka xaq u lahaa inay codeeyaan ee waraaqaha la siiyay waxa ahayd 16 warqadood 11 waxa heshay Farxiyo Cabdiqaadir 5 waxa heshay ayaan aamusane taasoo macnaheedu uu yahay gudoomiyaha dumarka ee jaaliyadu waa Farxiyo Cabdiqaadir doorashada sida u dhacday si dimuqraadiga ah weeye wax yar way iska jireen oo maartay sharciga inoo degsan iyo sida hadda aan sameeyay waxaanu sameeynay wax meel dhaxaad u baan sameeynay laakiin wixii hadda ka dambeeya jaaliyada waxay noqon doontaa 2 sano kadib hadii Ilaahay yiraahdo sida aan ila muuqato in haweenka maadaama sida hadda caawa ka qaybgalka sida ay noqotay waan idin hambalyeynaa runtii mar dambe ma dhici doonto in ay muxuu ahaa gudiga fulinta ay dumar u codeyso insha Allah waxaan rajaynaynaa gudoomiyaha hadda la doortay ee cusub in gudoomiye ku xigeen ay soo doorato iyo team workigi ee ururka haweenka la shaqeyn lahaa yaan rajaynaynaa insha Allah oo dardar cusub muxuu ahaa jaaliyada la soo geliyo ururka haweenka waa la dhafarka jaaliyada marka waxaan jecelnahay ma aha oo kaliya mar uu la iska soo xaadiro waxaan jecelnahay si joogta ururka sidii waxaan u jeedaa jaaliyada sidii hore ma aha waxa weey jaaliyada muxuu ahaa waxay u baahan tahay kal fadhiyay sameeysaa sharci baa la sameeyay dastuur baan sameeynay golaha dhexe waqtiga kulmayo golaha fulinta maartay xeer waxa jira qabyo qoraal ah oo inoo degsan oo la rabo idinka laftigiina inaad xeerkaas aad wax ma taqaana ku dartaan fikirkiina marka runtii waa wax lagu farxo way waan ku idin hambalyeynaa
wax kale haddaan samayno marka qodobka labaadna waxa weeye haddee uun diyaargarowweyn inteennii kale oyna maaragtay sidii hawsheennii aan u qabsan lahayn baa loo baahnaana insha allah loo baahan yahay waxaan rabay intaas aan ku darsanayaa dardaaran oo aan rabo in aan jaaliyadda u sii sheego waxyaabaha looga baahan yahay ururka haweenka iyo muxuu ahaa labada gole ee jaaliyadda kow inagii hadda waan dhisanay wax hadda inoo haray ma jirto jaaliyadda dhismaheedii oo dhan caawi u dambaysay yacni ururka haweenka ee jaaliyadda in guddoomiyihii muxuu ahaa caawa la doorto qodobka koowaad aan rabaa inaan maaragtay u siisha la dardaarmo khaasatan guddoomiyaha jaaliyadda in la dhammaystiro qabyo qoraalka dastuurka jaaliyadda oo si aanan hadhowtii wixii hadal uga bixin dhowr iyo hadda wuxuu jiraa dhowr iyo 10 qodob baa hadda dastuur ku qoran in inta la sii balaariyo waa qodobka koobaad in si degdeg ah loo dhammaystiro accountiga jaaliyadda waad maqlaysaan in la dhammaystiro accountiga jaaliyaddan account lahayn wax soconaya ma jirto jaaliyadana waan ku wada qornay yaa muxuu ahaa account yaa qabanaya wixii dhan way wada qoran yihiin qodobkaas labaad waxa ku xiga ka saddexaad waxa weeye ururinta dakhliga waa muhiim ururinta dakhliga jaaliyadda waa muhiim waayo ururin dakhli waxa ka horeeya waxa la yiraahdo muxuu ahaa accounting markii la waxay dakhliga ururinta waa in la dedejiyaa qof walbana uu ku wada qoran yahay hebel kama sheegay uu ku qoran yahay oo arintaas waa in la dedejiyaa qodobka afraad waxa weeye oo raba inaan kala dardaarmo team workiga gudoomiyaha jaaliyadda uu sameeyay oo qodobadan haddaan u sheegayo waxa kamid ah diiwaangelinta jaaliyadda yacni inagii jaaliyadii baan ka tirsanahay un baan isleenahay laakiin jaaliyad markii leeyahay waa inuu qofkii mataqaanaa identity u haystaa uu ka mid noqdaa uu fiigii bixiyaa si dee maaragtay jaaliyadana wax u helaan marka arrintaas in ayadana la xoojiyo waa muhiim yacni muxuu ahaa diiwaangelintaas aad bay muhiim u tahay waa qodobada sharci u yaala wey jaaliyadda tan saddexaad tan waxaan u jeedaa shanaad qodobka ugu dambeeya oo aan kula dardaarmayo waxa weeye jaaliyadda haddaad tihiin waxa weeye wada shaqayn haddayna jirin wax soconaya ma jirto kow talabaad waxa weeye daacad in loo shaqeeyo oo ah in jaaliyadda inaan laysku halaynin weliba khaasatan muxuu ahaa ururka haweenka please waxaan idinka codsanaynaa hadda ilaa kalfadhigii lixaad baan maraynaa waxba kala qaran mayna kalfadhiga lixaad 2 gabdhood 3 gabdhood kaliya ayaan haynay haddana caawa ku faraxsanahay we are very happy in intaan kale lagu soo waayo idinkaan idin baahanahay leeyahay kama maarmo ayna noqonin spirit meel kale loo eego ay noqoto mid joogta muxuu ahaa la isla shaqeeyo dumarka oo muxuu ahaa iyo ururka jaaliyaddan u jeedaa marka taasna waa iga dardaaran aniga runtii aad baad u mahadsantiin wixii aan qaban karay waan qabtay de hawshii wax hadda inoo dhiman ma jirto aanan ka ahayn fulinteedii wey gudoomiyaha gacan ha la siiyo gudoomiyaha jaaliyadda golaha fulinta waa dhalinyarada u badan odayaashana ilaahay khayr ha siiyo ogaasyada garaadyada ama aan iraado mataqaanaa suldaamada meesha joogan iyagana saas oo kale habeenaya maalin bay shirka kalfadhiyadaas ka soo qayb galayeen please jaaliyadda waxay soconaysaa markii kalfadhiga qofka la isla yimaado oo warbixin la isa siiyo ma aha magaalada ani waan arkay magaalada telephone baa la isu soo diray maxaa la sheegay uma meesha la leeyahay what do you mean maxaa la sheegay you have to come the golaha fulinta imo kalfadhiga ka soo qayb gal midda kale ma fiir kalfadhiga muxuu yahay golaha fulinta waa bishii hal mar waaye golaha fulinta bishii hal mar golaha dhexena 3 bilood baan mar ka dhignay بالله عليك بالفيرية انتاس يعني شقدي إنا يسعتها لو باهية مركا عنك هذا انتاس وحنا نسوي كالفردي تضاد ودني وهبين وأنا قلنا سرين إن أن ما تقانا عنو ما تقانا يعني جارية دي أي كعضو مجالنا قوة النور هو أبته المجالنا حالة دي ذوات لا سعتان حما كلام معها لكن وحال الرباء جارية دي إنا كم مقارنه أو أن ودن كيني لو كيني دولة دجان كيني سوماليا إثيوبيا
inaanu mataqaanaa laftigeena aanu la soconno wax ka socdo horumarka ka jira waad aragteen runtii waa aad baan ugu faraxsanahay horumarka maxaa kamid ah mesela waataad aragtay hadda ardaydii ka baxday qalinjabinta sanadkan in yani lagu abaalmariyay intii soo qalinjabisay yani in mataqaanaa shaqo isla markiiba mataqaanaa shaqo loo cayimay oo shaqadaas maxay tahay qof walba nasiibkiisa 9 gobol ee kilalka in qof walba uu kalsooni uu mataqaanaa macnaha halka kaartadaas fiirinaysaan waa 9 gobol ee dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya markaas dhalinyaradii waxay kalsooni ku noqdeen in ay mataqaanaa meel walba oo loo bedelo gacantiisa kula soo baxay nasiibkiisa yani ardaydii yani wax la heli kara maaha arintaasna maxay ku suurto gashay habsamo u socodka muxuu ahaa dawladda deegaanka Soomaaliyeed uu madaxda u yahay Cabdi Maxamuud Cumar marka iyo kabinetkiisa la shaqeeya runtii waa wax lagu farxo aad iyo aad horumarka degdeg la gaari wax la soo koobi kara hadda caawa ma jiraan midda kale aan rabaa inaan idin sheegay ayaan dhaweyd baan kilkii aan tagay runtii waxa weeye markaan in yar idin taabto qurba joogta yani heerka la gaarsiiyay ma malayn kartaan yani qiimeynta la gaarsiiyay waxa loo sameeyay waxa la yiraahdo xafiis baa loo sameeyay wasaarad baa loo sameeyay wasaaradda maxay tahay waa baahida qofka qurbi joogta uu markaa wuxuu u baahan yahay loo qabanayo oo heer wasiir ku xigeenna ayaa heelan ku ah oo ku soo dhaweynay mar hadii qiimahaas loo yeelay taa kaliya meehe shacabkii xukuumadii dawlad iyo new police oo muxuu ahaa wadanka nabadgelyadiisa dhan sugay oo waxaas oo dhan nabadgelyada Ilaahay ka soo ayaga ay sugeen muxuu ahaa nabadgelyadii yaad respect ku siinay hadii mataqaana adiga ku arko qurbo joog aad tahay waxa lagu leeyahay aabo hadii la yiraahdo gabadha arkana hooyo baa la leeyahay maxay tahay macna waa qiimeyn waa qadarin يعني تاس كلي أيات كقيران كرتا يعني وتقرن كرتا ودن ك يعني قيمين قفك محوها قرب جوكت الله هي مركب بالله عليك وحنا كرجينا إن شاء الله ودن كإن واحد لا تجو مال قليل لقليو حدنا أنا نقدر ونصعنا إن شاء الله تعالى إن ودن كإنه هو يقولنا أنا متقنا وحي أنا قابن كرنا أنا قابنه مركب هذا الكي أنا كل أنا وحوي آدي بدو ما سنتين مر لبعض همبليو قدوميها عصب أنا عاود دورني همبليو أيالله هي مركا آدي أدبادو مهتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالمان هذا الكمبيوتر وحنكسر دوين يا الأخ الفاضل الشيخ فاضل الشيخ ضيب تفضل بسم الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dumarku wax badan bay raka calacalay horta caaw maana idin dooranay waxaan aad ugu hambaliyeynayaa walaasha gudoomiyaha cusub gudoomiyihii hore haddana cusub caawa taasoo macnaheedu uu yahay qof haddii uu shaqo hayo oo loo cusboonaysiiyo waa qof wanaagsan oo loo bogay weeye marka ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu tawfiiq uu siiyo oo waafajiyo wax iyaduna ay ajri ka hesho bulshadana anfaca waxaan kula dardaarmayaa jaaliyada rag iyo dumarba wada shaqayn iyo daacadnimo iyo karti inay muujiyaan jaaliyadu marka la joogo dibadda jaaliyadaha dibaddu iyaga dawla u ah bulshada meesha ku nool marka in ay waajibaadka ka saaran bulshadaas ay jaaliyada u yihiin in ay gutaan baan ilaahay uga baryeynaa uguna dardaarmaynaa inay iska ilaaliyaan wax kasta oo khilaaf ku keeni kara laaixada ama xeer hoosaadyada u yaalana ay ixtiraamaan oo ay ku shaqeeyaan qaab maamul aan lagu shaqeynin qaab afraad yurub baynu joognaa hadda wax badan baad insha Allah ka barateen nolosha meeshana marka waxaan rajeynayaa inaad dadaal sameyn doontaan horena u socon doontaan annaguna waan ku faraxsanahay markii tan ka horeysay raggii baan dooranay haddana gabdhihii baan dooranay taa macnaheedu waxa weeye jaaliyadu way samaysan tahay hadda
laayaxadeedii ama xeer hoosaadkeedina waa dhammaystiran yahay labadeedii qayboodna waa dhammaystiran yahay hadda inay horey u dhaqaaqdo unbaa hadhay waana socotaaba way dhaqaaqday haddana waxooga idinla yar kaftamo dalka sacuudiga yaa waagii ay dowladda noqonayeen yaa waxaa la yidhi dadku waxay diidi jireen kaarka hadda jinsiyadda sacuudiga noqday ee lama helaanka ah bay odhan jireen maxaan ku falaynaa kolkii muddo la joogo kaarkii adkaaday bay dowladdii dadkii kaarka u diiday waagii la bixin jiray waa diiday baa la yidhi oo mucaarad bayd malaha yay u arkeen dad farbadoo soomaali oo waagaa joogay baa ku jinsiyad waayey oo war kaarkan maxaan ku fali odhan jiray saa waxaan u leeyahay kaarka jaaliyaddu muddo dhow qaalib u noqon doonaa marka qofkaan hadda qaadanin dhowaan aad buu u dacwoon doonaa sidaa darteed waxaan rajaynayaa inaad sidaa kolkaan siaan leeyahay waa iga dhab inaad ku dadaashaan oo aad xubin actiifa noqotaan dadka jaaliyadda ka soo jeedo aad jaaliyadda xubin actiifa ka noqotaan maamulka qolaha maamulkana waxaan rajaynayaa saan u sheegay inay aad ugu dadaalaan sidii ay xaqa jaaliyadda u gudan lahaayeen waajibaadka ay saaranna ay ilaahay ugu dhowaan lahaa caalamkana waa khidma caama la yidhaaho dadkii baa loo shaqaynaya haddaba wax yar munaasabadda oga faa'iidaysto anigu waxaan jeclahay waxbarashada meeshii waxbarasho lagu sheegana waan kolkii la sheega dhagtaa ii taaganta mar dhexdii ahayd waxaan ka fiirsaday warbaahinta dhallinyaro aad u fara badanoo jaamacada intii ka soo baxday shaqo loo dirayo arrintaa aad baan ugu farxay waanan aad bay raad iigu reebtay inuu qofku waxbarto shakhsigu inuu waxbarto waa arrin weyn waa waxa tanmiya albashariya carabiga la bani aadamka oo la hormariyo qofku inuu hormaro isaga marka hore ka timaada in guri loo dhisiyo in jid loo dhisa waxa ka muhiimsan in isaga la sameeyo marka qof inuu waxbarto waa wax weyn laakiin haddana waxaa wax weyn oo la sii socda qofku inuu dalkiisa wax ku barto oo meel kale wax ku soo baran waa wax kale oo weyn oo waxbarashadii la socoto wey waxaa kale iyaduna macno kale sii samaynaysa inuu qofku dalkiisii wax ku barto waxna barto dalkiisina wax ku barto waxbarashadana ay ka timid dowladdiisii oo isaga oo wax bixinin wax bartay iyaduna waa arrin weyn waxbaad baratay dalkaayad baad ku baratay kharash la'aan baadna baratay yacni wax weyn weeye arrin aad yacni inagu hadda markaan meelaha joogno aan garanayna laakiin suurogala tahay dadka gudaha jooga inaan aad u garanayno waxaa iyaduna qiimo kale sii samaynaysa qofkii oo dalkiisii wax ku bartay waxna bartay dalkiisina wax ku bartay lacag la'aanna ku bartay waxbarashadii oo haddana markuu waxbarashadiisii dhammeeyey dalkiisii ka shaqaynaya iyaduna qiimo gaaray leedahay inaad shaqo intaad doonato dal aan kaaga ahayn aad u khidmayso ood cilmigaagii iyo awooddaadii geliso waa khasaare marka inaad dalkaagii ka shaqayso ood u khidmayso ood u adeegto dalkaagii mushaarkaad qadanayso waxa ka muhiimsan khidmadaad fulinayso taasina waa muhiim waxaa iyaduna macno gaara sii samaynaysa ardaygii markii inta wax la baray uu shahaadadiisii qaatay dowla u xil qabta oo u aragta waajib inay ku tahay inay shaqo siiso dareenka ay sidata iyaduna arrin weyn weeye waa arrin aad u horeysa way aad u qiimo badan saa darteed arrintaa aad baan u bogaadinaynaa aadna waan ugu faraxsannahay ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu siyaadiyo tallaabooyinka noocaas oo kale ah madaxda arrintaa ku dhaqaaqdayna khayr allah siyaan leenahay aadna waan ugu bogaadinaynaa taasina waa farriin aan u dirayno arrintaasi meeshii ay ka dhacday iyo madaxdii samaysayba aad bay ugu mahadsan yihiin waxaanan aad iyo aad ay u tashjiicinaysaa ama ay xoog dafca siinaysaa ardada hadda wax baranaysa markay arkaan kii ka horeeyay oo markiiba la koolkoolinhayo shaqo la geeyay kuwa dambana waxbay baranayaan laakiin kii hore markuu waxbarashadii dhammeeyo hadduu jidka soo fadhiisto kii wax baranayaa qalbi jabaya
sidaa darteed tallaabadaasi waa tallaabo aad u wanaagsan aadna waan u bogaadinaynaa intaasaan kelimadii kusoo koobi lahaa baaraka allahu fiikum wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalim waxaan u mahadcelinayaa dadka ka soo qaybgalay doorashadan caawa waxaan u mahadcelinayaa walaashay farxiyo oo ku guuleysatay doorashadan hambalyaan leeyahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dad wanaagsan oo kula shaqeeya inaad heshid dadka jaaliyadda ka soo qaybgalayna waxaan u sheegayaa ee gabdhaha ah sidaad caawa uga soo qayb gasheen doorashada waa inaad uga soo qayb gashaan waxtarkeedana oonan laydin arkin habeenka lays dooranaya habeenka kalena laydin arko ood ku soo badataan jaaliyadda intaasaan idin rajaynayaa wiilashana waan u mahadcelinayaa dee waadna doorateen allah idin doortay idinkana asalaamu calaykum waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh cabdiraxmaan oo ah arrimaha bulshada u qaabilsan jaaliyadda sheekh cabdiraxmaan tafadal dhammaantiin waan idin wada salaamayaa salaanta islaamka gabdhaha iyo wiilashaba waxaan si gaara u salaamayaa gabdhaha iyaguna runtii sida qiimaha iyo qaayaha leh iyo siday uga soo qayb galeen xafladantada ayada ayaan aada uga mahadcelinayaa waxaa kaloon ka mahadcelinayaa runtii dadka odayaasha iyo dhallinyarada juhdiga badan bixiyey ee xafladantada soo abaabulay gaar ahaan injineer cabaade oo runtii wax badan waayahan dambe boodhka ka jafay jaaliyadda waxaan u malayn intii la odhan lahaa waxaa yidhi odayaashii hore wanaagga iyo waxqabadka iyo waddankeennu sida uu yahay waa laga soo sheekeeyey waana wax jira ilaahay baana mahad ku leh ilaahay markuu nicmad ku siiyana nicmada in lagu xamdiyo wa amaa binicmati rabbika faxadith waxaan inoo rajaynayaa sii wada shaqayn rag iyo dumarba kuwa maanta loo doortay iyo meeshan hadda aynu isugu nimid iyo intii ay soo jirtay juhdi badan baa ku baxay dhib badan baa laga soo maray gabdhaha iyo wiilasha la doortayna waxaan gacanta u gelinay waa dhib iyo maaragtay inay ay meesheedii ka sii wadaan ilaahay ayagana ha ka ajirsiiyaan leenahayo ha noqdaan kuwo dalkooda iyo dadkooda u adeegaya inteenna kale waxaan leenahay dhibkaas asaga ah dheefta uu leeyahay mid innaga keligeena maaha waa mid dalkeennii iyo dadkeennii iyo caalamka maanta waxa ka jira markaad dhowrto runtii waxyaabo badan aad ku fahmayso qofka bini aadamkana looma abuurin inuu lafihiisa keligiiun inuu wax qabsadee dalkiisa iyo dadkiisa maanta waxaan ognahay waddamadii inaga hormarsanaaye adduunka caalamka maanta sida ay yihiin innaguna maanta keennuu siduu yahay marka nicmo markuu ilaahay ku siiyo waxaa loo baahan yahay nicmada inaad ilaahay ooga xamdido waddamadii bicitatul ambiyaa shaam xadaaratu fi lcaalam masar iyo ciraaq waa u jeediin innaguna maanta meel innagii carruurteenni ay degan yihiin oo ayna meel u qaxaynin oo horumarsan ayaan maanta ilaahayna siiyey marka waxaan ku xamdinaynaa inuu kuwaan ilaahay ka qaboojiyo innagana uu ilaahay inoo soo siyaadiyo waxyaabo badan baan tabanaynaa wixii aan tabanayno wax walibana mar qura kun fayakun maaha waxay u baahan tahay sidii innagu aynu isugu nimid in juhdi la geliyo in allabari la geliyo in odayaal iyo sukeeritaan iyo dumar la geliyo marka waxeennu ma dhadhowa marka wixii aan tabanayno oo dambana wixii dhiban inaan samirkeeda yeelanno wixii kale ee wax ku darlana inaynu si ay caqli iyo cilmi ku dheehan yihiin inaynu ugu gudbinno kabinadkeenna iyo dowladeenna maana ku talagelin qoladan aniga ima sii sheegin inaan maaragtay aan kelimad meesha runtii aan ku leeyahay waxaan u hambaliyeynayaa farxiyo cabdiqaadir oo dee labadii sane horena na soo hogaaminaysay haddana caawa mar labaad loo cusboonaysiiyey hambaliya baan ku leeyahay farxiya ayaanu la shaqaynaysay oo labadaas sano iyaduna shaqo weliba actifa soo waday aad baan adigana dee kuu hambaliyeynayaa halkii unbaad ka sii wadi ayaani adiguna halkii unbaad ka sii wadi marka waan hambaliyeynayaa runtii ayaga hawsha ay qabteen baan caawa isugu nimid intayadanoo dhan marka farxiyana waan u hambaliyeynayaa ayaana hawsha halkii ka sii wad qof firfircoon baa tahay oo actifa lagama maarmo
marka waxaan rabaa dee hawsha halkaaga inaad ka sii wada adiguna marka waa mahadsantihiin salaamu calaykum waxaan ku soo dhaweynayaa marti badan oo caaw inagala soo qayb qasay baa jirta shirka cabdulaahi muumin ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلي وحا فرحدي كلن كان عاوة أنا كسوق قيب قالوا روانتي كلن مضى لسوء إيمان إياه dadku wax ku qabsanayaan ummadooda ay ugu fikirayaan wax wanaag soo saarayaan ay kulamadani kamid yihiin inay dadku runtii isku yimaadaan hawl adag weeyaan isku keenita dadka la isku keenayana waa hawl dhib badan dadka ka shaqeynaya runtii isku xidhaya ummad in runtii 10 qof la noqotay waa hawl badan markaan horta runtii waxaan leeyahay kulankaygii labaad weeyaan ka soo qayb galo dadka iga soo horeeyay inta soo waday ayaa horta u taanadeynaya hawsha isku haynta dadka iyo iska warhaynta ayaan horta qodob kale ka waranaya anu runtii waxa weey hadda cid baan dooranay dumarkan laba qof hal qof oo mas'uul oo dooranay qaybtaasi ka warhaynta iyo mas'uuliyadda iyo xiriirinta dadka waa qaybta ugu badan ee qofka aadamigu sameeyo dhibtiisuna ay badan tahay in qof yeed qof aan diyaar ahayn baad la xiriiri qof aan niyad badan hayn baad dhiirigelini runtii waa hawl badan qof kastoo mas'uulina way ku timaadaa inaan meesha kaga tagin gabadha ayada la doortay aan runtii waxaan raadaa qof kastoo mas'uul loo dhiibay hol loo dhiibay ama qof dumar ha noqdo ama rag noqdee inaan moogtahay la caawiyo uu u baahan yahay macnaha waxa weeyaan magac iyo tilmaan mas'uuliyadeed in marka magacaas waa wada leenahay ka warhaynteedaan leenahay marka intii kale inay isdhigan oo dhan maxaa ahaydey wallahi ilaahay meesha loo doortay dareenku wuxuu ku bataa qofka mas'uulka kulli nin qof xil qaaday eedun buu qaaday eedna la waayi maayo canaan la waayi maayo khaladka waxa la isku qabsada badanaa waxa weeyaan inta khaldan inta wanaagsan la isku qabsado qofku wuxuu wanaajiyay ee uu qabtay badanaa lama xisaabiyo laakiin waxa la xisaabiyaa qofku inta ka khaldantay taasna inuu qofka si fahansan loo baahan yahay oo inaga mid ah amalka si hawl kastoo la qabanaya nuqsaanta ama dhaliishu waxay ka timaadaa oo la isku qabsadaa qofkaasi meeshuu gaari waayay wuxuna waa tadawuc maaha mid mishaar la isku siinayo mar haddaan mishaar la isku siinayn yani waxa weeyaan qofku intii waqtigiisa ka soo hadhay ayuu ku bixinayaa intii kale noloshii kale ugu qabsanaya caruurtiisa shaqadiisa laakiin wuxuu gelinayaa intii soo hadhay markuu intaa soo hadhay geliyo in badan la qaban maayo intaa uu gelinayo way yar tahay marka inaan ku wada talagalno hawshaan qabanayno inay hawl badan haddii dhinac laga fiiriyo oo weyn maaha waqtigaan gelinayna ku xidhan tahay haddaan waqti badan siino hawl badan baan qabanaynaa haddaan waqti badan siina hawl yar baan qabanaynaa marka runtii aan isdhiiri gelino han isku abuurno kalsooni dhexdeena iyo wanaagga wanaagka shaqayntiisuna waa aad ba yani moogtahay u dhib badan tahay sideedaba markaan waxaan kusoo koobayaa dhammaan dadka ka shaqaynaya jaaliyadda inay isku sabraan isku dulqaataan dhexdooda hawlaha la hayo marka hawsha la qabanayo waa isku dhaca badan iyo dareenka iyo sidii loo rabay looma qaban qofka kale uu maxaa eedeeyo marka in haro loo socdo oo kalsoonida la badiyo inta yar haddii la wado in badanna way noo iman inteynani wada joogtay haddaan kulanka dambe wada joogno way sii labalaamaysa kulanku sii labalaamay laakiin haddaan goyno wuxuu noqonayaa wallaahi waa wixii halki jiray markaa waxaan guddiga soo gabagabeynayaa dhammaantiin runtii mas-uuliyadda gabadha loo dhiibay inta kalena waad la leedihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si aad la socotaan caawa marti badan baa shirka ka soo qayb gashay marti waxaa ka mid ah
arda cumar oo wakiilka oo ah jaaliyadda Switzerland dhanka haweenka oo ku magacaaban gudoomiyaha ururka haweenka jaaliyadda DDS ee dalka Switzerland ku soo dhawow. بسم الله waxaan salaamayaa jaaliyadda Birmingham ee isugu timid howlkan caawa sharafta badan ee quruxda badan waan salaamayaa rag iyo dumarba waxa kale oo u hambalyeeynaya walaalahay ayaan aamusane فرحي عبد القادر waxaan leeyahay hambalyo okay waxaan ku faraxsanahay sida sharafta leh uga soo qayb gasheen aad u abaabusheen waxaan leeyahay marka koowaad iyo marka labaad hambalyo 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 waxa kale oo idin leeyahay anigu marti baan idin ahay ugumana talagelin inaan hadlo ogaaska igaaday laakiin macno male waa ka faa'iideysanaya waxaan kaloon salaamayaa haddii aan Birmingham ka baxo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee fadhigeedu yahay magaalada Jigjiga waxaan ka bilaabayaa madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar iyo kabinetkiisa sida xisbiga iyo new booliska nabadda sugay waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan qaasatan gees u salaamayaa ururka haweenka sida Sucaad Maxamed Faarax iyo dhammaan waxa gabdhaha dowlad deegaanka jooga oo dhan ee shaqada wadaba waxaan ku faraxsanahay inaa haweenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya horumar la gaarsiiyay ayaan aad ugu faraxsanahay markastana aan soo dhaweeyaa sida Raxmo Maxamed Haybe ururka haweenka hooyada iyo dhalaanka sida wanaagsan ay u horumarisay farxadda aan ku jirno sanadkii hore aan tagay haddana waa u socdaa waxaan idinka bariyaa idinkuna inaad nala soo dhaweysaan haweenka maxaa yeelay waa halkii laga aas-aasmay waana waxa kaliya ee wadankeena horumarin kara waxaan kabinetka iyo xisbigana ugu hambalyeeynaya sida wanaagsan ee wadanka ay u horumariyeen sida biyaha laga bilaabo reer miyi xoolo dhaqatada waxbarashada caafimaadka iyo wax kasta oo ka jira dowlad deegaankeena aad baan ugu hambalyeeynaya dhammaan inagoo awal dhibaato badan soo marnay anoo weligay wadankayga arkin anoo ooyaan Jigjiga ka degtay haddana qabrdaar meel yiraahdaan u socda marka waxaan leeyahay hambalyo labadayda garab midig iyo bidix waa walaalahay waa ku faraxsanahay anoo caawa garan baa aaba si aan yeelo runtii oo ma ayaan baad aadaa ma farxiya aadaa ayaabaad noo dhib yarayseen marka idinkuna waxaa soo abaabulay fikirkaas waa u hambalyeynayaa idinkuna waxaad leeyahay shaqo wanaagsan waa mahadsantiin dhaweynayaa odayaasha magaalada jaaliyadda DDS أحمد آذن كسر دو
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله لئن شكرتم لأزيدنكم الله سبحانه وتعالى ساس النويري في سورة إبراهيم أدان إلهي كشكرينه نمعوين كيس بدن كشكرينه الله سبحانه وتعالى وإنه سيادين waxaan u mahadnaqayaa dhammaan guddida qaban qaabada gudoomiyaha jaaliyada xiriiriyaha gudoomiyaha jaaliyada iyo dhammaanteenba ka soo qaybgalayaasha waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib runtii habeen wanaagsan weeyi aan isku afkaranay qaybta naga tirsaneed haweenka doorashadoodii aan dooranay kulligeena waxa weeyaan hawsha waa hawlan wadaagina weeyaan marka insha Allah waxa weeyaan sidaas uma nagu socon doontaan waxaan ku magacaabanahay madaxa maalgelinta ama maxaan idhaahdaa fundraising-ka marka insha Allah kulli shirkeena soo socda April hadii la ilaawo baan kaga hadal doonaa sidii waxaan u ururin lahayn iyo sidii waxaan u magaranaysaa insha Allah isugu dubarida leen xagga maaliyadda insha Allah walaa imiga maanta dadka kama hadlayno maanta doorashadii un bay ahayd si wanaagsan way noogu dhacday marka insha Allah hambaliya ayaan dhamaanteen isku hambaliyeenna gaar ahaan gabadha la doortay iyo ku-xigeenkeeda bahdii la ilaa insha Allah xagii wadankii marka la yiraahdo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida qolinkii ugu horeeyay bay sheegeen 7,000 dhalinyarada maanta la shaqaaleysiiyay maxaan idhaahdaa biyaasha la xidhay iyo wabiyada iyo dhaamka la sameeyay waxa kale oo cajiib oo runtii maskaxdeeda wali ka guuxaysa xalay TV-ga iyo ST-baan ka daawanayay reemigii baa waxa tijaabooyin lagu sameeyay in toilet loo sameeyo musqulo si ma garanaysaa loo yareeyo xanuunada iyo infection-ka iyo wixii ma garanaysaa ka iman karaya nadaafad darrada oo qaabkaas yani waxa weeyaan dawladda dhinac walba laga fikiray runtii waa fikrad aad u caafimaad qabta weeyi marka waxyaabaha ma garanaysaa dunida runtii aan ka qaadanay waxa kamid ah si loo nooleeyo oo loo soo nooleeyo ma garanaysaa beeraha waxa weeye dunidan joogna maanta reer galbeedka la ilaa warshado qurux kuma faanaan seen ognahay runtii waxa weeye beeraha ka bilaabeen beeraha ka horeeya warshadaha beeraha ka bilaabeen inaan waxa geeni wax ka bilowna beerahan ka bilowna maanta oo waxa weeyaan wabiyadii maanta ilaahay nisiyo wadankeena dhex socday baa la xidhay oo bariis laga beeray qutar laga beeray wax walba laga beeray ma sha Allah alxamdulillah inteeni meelahan joogteena in badan baa ka qayb qaadatay oo mashaariic ka furtay hadii la ilaa insha Allah marka dhamaanteen sidaas ayaan idinku hambaliyay indana wadankeena waxaan leenahay hambaliyo midana Cabdi Maxamed Umar iyo kamaaleedkiisa iyo wasiiradiisa golaha oo mahad celinaya waan ugu ku hambaliyay hawsha wanaagsan ee noo qabteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inaya gudoomiyaha jaaliyada DDSI ee Sadio Cabdiraxmaan Gelengel ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله دمانتين وسلامتين مرت شرف كسو قيب كشي كلن كان مانتا انو اسكون نمي جاليدا DDS ميدلاند ويست ميدلاند ورينت waxaan halkan ugu hambaleynayaa doorashada quruxda badan ee ka dhacday maanta ururka haweenka ee lagu doortay gudoomiyii marka waxaan u hambaleynayaa halkan Farxiyo Cabdiqaadir waxaan kale u hambaleynayaa musharaxa labaad ayaan oo leeyahay doorasho si fiican baa u dhacday marka waan iyadna ku mahad celinaya intaas kasaka waxaan halkan aad ugu hambaleynayaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya anoo ku hadlaya ururka dhalinyarada DDS ee gobolkan aan ku noolahay Birmingham oo iyo ururka Sadio oo ah urur horumarka ka shaqeeya in deegaankeena oo wax badan sameeyay haday noqon lahayd agoomaha ay aad uga qayb galaan caawiyaan iyo wixii kale ee horumara waxaan kaloo halkan ugu hambalyeeynaya maamulka suuban ee deegaanka oo madaxda u yahay Cabdi Maxamed Umar oo ugu hambalyeenayo horumarka fiican ay sameeyeen muddooyinka ugu dambeeyay oo kamid ahaayeen ardaydii qalin jabisay 700 ee ahayd ee isla markaa lagu gudoonsiiyay warqadoodii shaqo ee deegaanka meel kasta oo qof kasta nasiibkiisa uu soo baxay waxaan kaloo halkan ugu hambalyeenayaa ciidanka new booliska oo ah lafdhabarka
deegaanka oo haddii aan nabad jirteen nolol ma jirteen oo ah kuwa habeen iyo dharaaru taagan sida ay u sugi lahaayeen nabadgelyada iyo ammaanka deegaanka oo aan leeyahay waa kuwii lagu hirtay marka aad baan igana ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aad halkan rabaa inaan ugu mahadceliyo dhammaan jaaliyadda DDS ee meel kastoo adduunka kaga nool yihiin aad baan u mahadsantihiin waa mudanti inaga mudan waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha cusub mar labaad dib loo doortay gudoomiye farxiye ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قبلها يويلشا odayaasha sheekhyada aad baan idin salaamayaa marka koobaad marka labaad aad baan idin ka mahad celinayaa hawshan aan mar labaad aad ii doorateen inaan ku soo noqdo hadii waa xil aad iyo aad u weyn waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay nagu asturo xilka aan qaaday ee marka labaad la ii doortay aad baan idinka mahad celinayaa dee waxaa naga dhaxaysa hadda ka bacdi inaanu ka sii xoojino hawshii aan wadnay aanu ka sii tallaabo qaadno ama aanu ka sii amba qaadno sida ugu wanaagsan uguna quman marka aad baan idinka mahad celinayaa dhammaantiin waxaanan idinka ballan qaadayaa sidii rag iyo dumarba sidii ay ugu talagashay ama sidii loogu talagalay inaan hawsha u qabto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku soo dhaweynayaa ugaas cabdi naasir بسم الله كلي وحلا ديلا هورا لو يري odayaashii ugu horeeyay baa yiri marka xafladani waa hambalyo gudoomiyaha cusub oo ururka haweenka jaariyada Birmingham Farxiye Cabdiqaadir iyo gudoomiyihii horeba waxaan marqaati ka nahay in doorashada si cadaalad u dhacday oo runtii doorasho aad u fiican oo runtii injineer Cabaade aad ugu soo shaqeeyay inay ka dhacday caawo doorasho dimuqraadi ah nin walbaba qofku rabo inuu doorto marka waxaan codsanayaa in maadaama saad dimuqraadiyada ay caawa aan wax u dooranay in gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka lala shaqeeyo hadduu ilaahay yiraahdo kulley waxa weeye waqti dambe weeye wixii la dhiilaana dee horaa loo yiri waa hambalyo gudoomiyaha cusubna inuu ilaahay xilkaa la qaado ay dardar geliso ayaa loo baahan yahay sida hore odayaashii ay u codsadeen in habeenka doorasho jirta kaliya aan la imaane ee jaariyadda ay maaragtay mar kastaba oo shirar jira la imaado oo dad badan ayaa magaalada ku dhunsan oo inay jaariyadda jirta aan ogeen in dadka la wargeliyo oo nin walba uu maaragtay dadkii uu wargeliyo oo la sameeyo maaragtay jaariyadda lagu soo xirmo oo xafiis la sameeyo oo runtii meeshaan caawa aad ku qurax badan oo limadna ay noo noqotaa kadib saldhig walaashay Farxiye Cabdiqaadir oo maanta naloo doortay gudoomiyana loogu doortay waxaan u hambaliyeynayaa oo kale ardaydayadii gudaha 700 arday markay jaamacaddii soo dhameeyeen la shaqaalaysiiyay wadankoodii meel walba gees afarta gees wadanka meeshii doonaan laga shaqaalaysiiyay nasiibkooda gacanta gashaday iyagu u shaqo tagay baan u hambaliyeynayaa waxaan u hambaliyeynayaa madaxweynaha iyaga Cabdi Maxamuud Cumar ee sharafta badan waxaan u hambaliyeynayaa xisbiga iyaga wacan waxaan u hambaliyeynayaa ciidanka New Booliska hambaliyaan idin leeyahay kulligiin waxaan leeyahay waxaan ahay New Police baan ahay wacd baan hor u maray waxaan ahay naftii hore iyo waliba Nooris salaam الرحمن الرحيم shirka waxa inoo soo xiri doona gudoomiyaha iyo maxay ahayd injineerka
labada shirka inoo soo xiri doona hadduu ilaah yiraahdo gudoomiye ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin salaamayaa dhammaan mudanayaal iyo marweyn culmaawadiinka iyo waxaan aad ugu hambaliyeynayaa dadkii soo abaabulay shirkan aadka u qiimaha badan leh labada toddobaad iyo inta ka badan hawshiisa lagu soo jiray oo u horeeyo injineer Cabaade oo ah xiriiryaha guud ee jaaliyadaha waxaa kaloo loo hambaliyeynayaa doorashadii sidii quraha badneed caawa noogu dhacday ee aan ku dooranaynay gabadhiina hogaamin lahayd labada sare ee soo socota oo aan ku guuleysanay taasoo ah Farxiye Cabdiqaadir waxaa kaloo loo hambaliyeynayaa ayaan maxamed soomane oo iyaduna ahayd gudoomiye ku-xigeenka hablaha oo aan haddana rajaynayo inay xilka iyo mid kasii muhiimsanba ay jaaliyadda usii qaban doonto shaqadana sii wadi doonto waxaa kaloo doonayaa inaan halkan aan laba qodob ka dhaho oo gabdhaha la dardaarmo gabdha yar xanaaqsan baan arkay xoogaa ka yar xanaaqay qaabkii doorashadu u dhacaysay waxaan wax guddo ka soo shaqeeyay bay ahaayeen waxa anugu aan go'aanka gaarnay maahayn ama aanu doonayna in qofna uu codeeyo qofna uu codeeyo muhiimadana waxay guraha guddiga fulinta jaaliyadda ay codeeyaan oo hablaha u codeeyaan bay ahayd gabdha dabcan wax raaligelin baan ka bixinaynaa dadkii ka carooday arrintaas waxayna ahayd arrin farsamo ha laga raali ahaado waxaa kaloo doonaya halkan ugu hambaliyeeyo ardadii 7,000 gaaraysay dowlad deegaankeena oo ay shaqada sida hal mar la wada siiyey oo madaxweynaha iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya ay go'aansadeen ku shaqaaleysiiyaan arday 7,000 ay gaarayso hal mar waxaa kaloo doonaya inaan u hambaliyeeyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya oo horumar fara badan wadanka ka wada kana hirgeliyo waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhaamamka waaweyn 96 dhaam gaaraya oo wadanka hadda laga wado waxaa kaloo doonaya inaan hambaliyeeyo maalinta hooyooyinka weynaynta hooyooyinka Itoobiya oo toddobaadkii la soo dhaafay laga xusayay guud ahaan Itoobiya oo dhan gaar ahaan kililka ama dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya si weyn looga xusay dhammaan ayaan doonayaa in aniguna halkan uga hambaliyeyno hooyadu iyo haweenku waa laf-dhabarta ummad iyo horumarka ummadda horumarto waxaa aasaas u ah in hooyada iyo dhallaanku ay helaan caafimaad anaguna waan taageeraynaa haddaan nahay qurba joog iyo jaaliyadda West Midland UK iyo guud ahaan Birminghamba waxaa kaloo guud ahaan halkan uga hambaliyeynayaa dhammaan كابينتك دولة deegaanka Soomaaliya Itoobiya hogaanka ugu sareeya ee uu horeeyay madaxweynaha Maxamed Cabdi Cumar hogaanka u sareeya xisbiga shacbiga Soomaaliya Itoobiya iyo golaha dhexe dhamaantood baan wada hambalyeynaya waxaan leeyahay hawsha aad wadaan waa hawl horumar leh waa hawl aan ku faraxsanahay anaguna hil iyo hoobeena garab taaganahay garabkiina ayaanahay waxaan halkan ka muujinaynaa inaan garab taaganahay waxa kale oo doonayna halkan uga hambaliyo uga diro ciidamada liyu booliska rajimtigii 19aad ama dufcadii 19aad ee qalin jabinaysay laba toddobaad ka hor ku qalin jabisay xerada tababarka ciidanka shaalaqa sahal waliba meel baan ka imid